maalintii arbacada galabteedii waa shalay maahana daraad bacda alcasr baan la kulmaynin holac baa saa ugu shidan oo gubanahaya waa iska dhawaaqahaya cabaad baa ka baxaya ninkii waday baa waxaan ku yidhi ninkaani imisa sano ayuu cabaadahayo saa u dhawaaqahaya 15 sano ka badan tahay buu ninku saa u dhawaaqahay ninka gurigii baa laga seexan waa aagii baa loo dhawaan waa asagii baa hurdo ka tagay dhaqaatiir kala duwan baa meel walba la mariyay meel walba la geeyay qarashka saa lagu bixiyay saas u dhawaaqahay waxaan ku yiri maxaa ku haya holac baa wixii halka iga qabanahay markaas aan waxaan gaarayaa inaan cabaado oo dhawaaqo dhawaaqaas aan cabaadayo dhawaaqayo ayaa nafsi ah nafis baa ka dareemay 15 sano weey bal fiirso ilaahayna wuxuu ku siiyay caafimaad lugahaagii baa kuu fiyow gacmahaagii baa kuu fiyow caqligaagii baa kuu fiyow indhahaagii baa kuu fiyow maqalkaagii baa kuu fiyow qalbigaagii baa kuu fiyow ma waalnid midka xoog badan oo muuqaalkiisu qof qurux badan ah ayaa dharka intuu dhigtay dariiqa koombooyinka sida xaarka kaadida qasanahaya oo iska yaala indhahaaga saartay kuna cibro qaadan maysid intaas oo cuuryaamiin ah oo isku yimid oo kulaylka aad aragtay guurguuranahaya ayaad in badan aragtay mana ku cibro qaadanaysid intaas oo indhala ayaa dariiqa saas gacanta loo wada hayaa adiguna laba tilaaba ku gudbaysaa asaguna hal saac uu soconahayaa meesha daqiiqo u socotay in la wada maahan ma dhaqaaq karo isbitaaladay dhooban yihiin guryahay dhooban yihiin dariiqyaday dhooban yihiin wixii aan ku cibro qaadan lahayn oo inoogu filna cibro qaadasho maalkaaga bixi oo ilaahay caafimaad uga raadso oo ilaahay subxaanahu wa tacaala shukri badan baa kugu waajiba shukriga ilaahay wax aan koobi karna ma aha haddaan ilaahay ku shukrino oo waxa aan haysano oo nicamka ilaahay aan uga shukrino ilaahay waa inoo ziyaadinaya inaga nuqsaamin maayo waa raxmad ilaahay ilaahay wuxuu leeyahay alam taraw anna allaha sakhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina biyana ogeyn oo arkahayn ilaahay inuu idin sakhiray samaawaadka wixii ku sugnaa oo madarkii ah dhulkii ilaahay inuu idin sakhiro khayr iyo barakaad inkaga soo saaray oo nicamkiisa ilaahay idinku shubay oo idinku daboolay zaahiratan wa baatina mid qarsoon iyo mid muuqataba ilaahay nicamkiisa aad dul harsanaysa tilaabada qaadid iyo tilaabadii qaadid baba waa nicam ilaahay oo ku dhex gadgadoomaysid weey wama bikum min ni'matin fa min allah wax alla waxa idinku sugan oo nimco ah sagiiriha wa kabiriha ilaahay xaqiisa ka ahaat ilaahay waa inuu ogolaato qofka waxa arkaysa qof baa ihsaan u sameeynayo maanta oo dhan buu majaalista ka amaanaya oo ku shukrinahaya oo madaxa ka dhunkanaya oo weyneynaya oo qadarinahaya ilaahaygi ka siiyay uma hay amaan ma xasuusnaba qalbigiisa waa ka maqan bani aadam buu maanta oo dhan amaanaya muxuu ku amaanaya maslaxad yar oo lahaa ayuu maalin maalmaha kamida ka gaar oo ka hel ilaahaygi qalbigiisa maslaxadaas u soo waafajiyay oo u soo adeejiyay oo u soo qasbayna qalbigiisa ma soo marayso waa ka maqan saddex arrimood u fiirso saddex arrimood waxay kuugu kaalmaynayaan inaan nicamka ilaahay ku shukrisid midda koowaad maxay tahay at-ta'ammul wat-tafakkur fi ni'am illah واستحضارها في كل لحظة وحيد إنا هرت النمعة أدو آد هيستد آد كفكرتد أو صوحة دريسيد قلبي جاga صوحة دريسيد oo aad tiraad bal ishaan fiiri intay la egtahay iyo nacfiga ay ku leedahay bal dhagahan fiiri maqalka ay leeyihiin bal aqliga ilaahay ku siiyo fiiri awlaadda ilaahay ku siiyo fiiri maalka ilaahay ku siiyo fiiri caafimaadka ahaysati fiiri bal inta maskaxdaada xaadirisid ha noqon qof iska dalacan oo gaafil oo halmaansane maskaxdaada ka shaqay oo nimcada bal adiga kugu wareegsan ku fakar وترسكاغو لا يهين وصاحبدا اي لا يهين بل ادو كفكر marka ku fakartid
oo ku fakartid waxay kugu bixinaysaa inaad tiraadid in badan alxamdulilah 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 bay kugu bixinaysaa yaa ayuha annaasu udkuruu nicmat allaahi calaykum wardadow ilaahay nicamkiisa xasuusta ayaa ilaahay leeyahay hal min khaaliqin gayru allah yarzuqukum min alsamaa'i waalard ma waxaa jira khaaliq idin abuuray oo ilaahay aan ahayn oo samada iyo arlada idinka arsaaqa miyaa jira ma jiro ilaahu adigaa khaaliqa adigaa raasiqa adigaa mudabbira adaan ku caabudayna waa inaad tidhaahdaa ilaahay marka wuxuu ku leeyahay wardadow nimcadayda xasuusta ilaah aniga ahayn ma jiro cibaado anaa idinku leh anaa idin khalqa anaana idin arsaaqa war xagge arrinkaan idinka mar waa waana lagugu waaninayo qofku marka nicamka markuu xasuusto waxaa u soo baxaysaa dad badan oo nicam kala duwan haysta hadday tahay waxay cunaan hadday tahay waxay cabbaan hadday tahay waxay xirtaan hadday tahay guryahay degan yihiin hadday tahay gawaarida hadday tahay awlaadda way ku raaxaysanayaan maca daalika intaas oo kale oo damiir ah oo dareen ah ma leh maxaa ka qaaday weligiis ma waayin waa nimco la joogtay oo iskala daris ahayd oo iskala socotay oo uu ku seexanayo ku soo toosahayay maqnaanshaheeda marna ma dareemin markaasuu wuxuu iloobay ilaahaygii u nimceeyo shukrigiisu iloobay arrinka labaad oo kuu fududaynaya ilaahay nicamkiisa inaad ku shukrisid waxa weeyaan midka nebiguna baray calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebi moxamed uu leeyahay unduruu ilaa man huwa asfalu minkum walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum waxaad eegtaan kuwa idinka hooseeya arrimaha adduunyada kuwa idinka hooseeya eega ha fiirinina kuwa idinka sarreeya fahuwa ajdaru an laa tasdaruu nicmat allaahi calaykum kaasaa wuxuu xaqiiqo ku yahay oo u dhow yahay inayna nimcada ilaahay xaqirin oo maxay tahay qofka kaa hooseeya kaa caafimaad liita nin baa xala waxaa arkay dhaawaca lug baa go'an midda kalena waa tabcaan korkiisana xanuun badan baa hayay markuu ii sheegay dhibaatada haysa ayaa waxaan u sheegay qof aan soo arkay shalay xaaladda uu ku sugnaa baa ugu sheekay markaasuu gacmaha taawayey waxaygu qarsan weeye marka waxba kama jiro soo jeed waxaad eegtaa dhib kastoo ku haysta kuwa kaa hooseeya caafimaadkaaga hooseeya maalkaaga hooseeya awlaadkaaga hooseeya magac kaaga hooseeya nolol kaaga hooseeya kuwa hoos u fiiri arrinkaasi wuxuu keenayaa waxa aa haysatay inay kula weynaadaan oo aad ogaato waxba inaysan kaa maqnay riwaayadda kale waxa weeyaan imaamu albukhaari idaa nadara axadukum ilaa man fudila calayhi fi lmaali waalkhalq haddii qofkiin eego qof laga sarraysiiyey xagga abuurista iyo xagga maalka baa lagaa sarraysiiyey caafimaad buu haystaa adigu caafimaad ma haysatid abuurista ilaahay abuuray buu kaaga sarreeya maalkiina waa kaaga sarreeya haddaad eegtaan oo qofkiin u eego falyandur ilaa man huwa asfalu minhu miman fudila calayh ha eega markaasbaba kuwa asaga ka hooseeya oo asaguna abuurista iyo maalka uga sarreeya ha fiirsho markaasaa cibro qaadanaysa arrinka saddexaad oo kuugu kaalmaynaya oo ugu dambeeya waxa weeyaan inaad ogaatid maalinta qiyaamaha ilaahay hortiisa in lagu weydiinahayo nicamka isaga oo arrinkaas su'aal ay ka dambayso oo aan intaan la isaga harahayn inaad ogaatid uma latus'alunna yowmaidin can الnaciim waa laydin weydiinayaa oo laydin weydiinayaa maalintaas wixii nicam laydin galay ina الsamca والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا dhammaan waa la isweydiinaya maalkii baa lagu weydiin caafimaadkaagaa lagu weydiin indhahaagaa lagu weydiin maqalkaagaa lagu weydiin qalbigaaga waxaa ku ictiqaadisaa lagu weydiin tilaabo kastoo aa qaaday baa lagu weydiin qofka taas ay sugaysaa siduu rabo uma dhaqmi karo waayo nicamkaa shukrigoodii waa inuu la yimaadaa walidaalika nabigeenna calayhi الصalaaةu wasalaam xadiidka imaamu muslim wuxuu yidhi ilaahay wuxuu leeyahay maalinta qiyaamaha addoonkiisa wuxuu ku odhanahayaa alam ukrimka
ميانا كرامين وأسودك نين سيد وقوم كيسا مدح ميانا كاردقين وأزوجك ميانا كوغورين كوركو وانا معوي وأسخر لك الخيل والإبل جيلا يفرضها ميانا كسخرين أو مال أنا كسين رير ميانا كسين أولاد ميانا كسين شرف يقيمة ميانا كويرين حديثك كلا وحوي على مصحة لك جسمك جاء صعاف ما أنا كوما سينين أنت مرك الله أخريه الله حسوسي وحلي هاي بلا ها وإن هذا السيس كده وإسيس ما ينكرك مركز إلهي وحلي أفظننت أنك ملاقي ما يقين السيء أو مر ما يسينا إلى كل ما يسد معنطي قال كي وحلي ما أنت مركو يراهدو أي إلهي وحلي فإني أنساك كما نسيتني ما أنت النحريست إذا وان كالت تجيا أو وان كقاضنيا أو كون نحريسا ما هيو سيدا أذوق طاعة إذا أذوق تكتي ما أنت وان كاتجيا سيدا أذوق رمين إذا أذوق تكتانون كاتجيا عذاب كالقول الجنان عياذا بالله نعم كان ولا ليال الآن هاي السنة ويصلى الله ونيا وين الشوغان وحنكو إلى شنكرنا إن الشكر إلهي بدنا